qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah ee deegaanada gobolka Gabiley kuwaas oo ay saameeyeen abaaraha baahsan ee ka jira guud ahaan gobolkani Gabiley ayaa ka hadlay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanadaasi iyo halka ay marayso waqtigani baan ku dhacday abaartu hanagu dhacdo ninkii 5 saacadood qodin jiray wuxuu qoday sanadka 3 goor buu qoday 15 saacadood bay ku tagay waxa markaa kulmay dhaqaale burbur beeraleyduna kulli goor kasto beertu astay waa lagu celiyaa waan ku celinayno wax dadka wax uga may soo go'in xoolaha waxba uga may soo go'in marka aad buu dadku hoos ka dhaxsan yahay dhaqaalihiisa dhibaatada biyo la'aanta iyo raashin la'aanta way farabadan tahay 12 ka beeraleyda waxa laga yaabaa maanta inaan aqal ka kirsanaya uu jiro way beeno beerihii way casiin sidaa daraadeed waa in horta baahideeda aad loo ogaado hadii ay tahay wasaaradda beeraha hadii ay hay'adaha madaxa banaan yihiin hadii ay dawladda tahay waa in aad yacni isha horta la noogu hayaa oo baaday abaaruhu wadiyada cidna loo sheegi maayo maanta cid waliba way ogtahay in abaari dhacday oo beeruhu biqlin oo hadii la yiraahdo xoolihii balkii loo waayay iyo caleen oo dabeedna la kala jabsanyo raashin jirin sidoo kale maraan wax ka weydiinay in ay gargaar ka heleen maamulka wasaaradda beeraha ee gobolka Gabiley ayaa waxa ay ku jawaabeen beeraleyda beesha taysaad annagu waxaan sheegaynaayo annagu sheegnay wasaaradda beeraha hadii jeer wayna caawisaa xagga tababarka iyo xagga hadii la yiraahdo qalabka beeraha cabdirisaaq aad iyo aad buu horta hadii ay tababar tahay hadii ay ogaansho tahay hadii ay ka warhel tahay hadii ay baahida beeraha tahay kulli baahideedu ma dhamaato laakiin aad buu maqarasa isha noogu hayaa noogu yimaada tababarka noogu qabtaa qalabka noogu keena hay'adaha intii au karaw noo soo hogaamiyaa waxaan leeyahay ha noolaado Sikriye Nuux Ibrahim Royal TV gobolka Gabiley.